السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي halkan ku xidhan dhammaantiiba waan salaam meel kasta aad joogtaan. Haddaba ugu horreyn muuqaalkeena waxaan ku soo qaadnaa gabar 15 jir ah oo cadaadis ka yimid aabaheed iyo hooyadeed kadibna qasab lagu guuriyay nin hanti leh. Haddaba inantii maxaa qabsaday dhacdadaas oo dhammaystiran ayaan halkan ku soo qaadnaa. ugu horreyn intaan gudagalin haddaad halkan ku cusubtahay subscribe saar haddii hore looga joogtayna like bar ku qabanaysaa sida muuqaalku dad badan u gaadho commentigana ka dhiibo kuna soo dhawaada gabadh 15 jir ayay ahayd cadaadis adag ba ka yimid aabaheedu madax adag iyo hooyadeedu aan hankeedu buu yahay inay hanti hesho in xil loo eegmo markii ay hooyadeed iyo aabaheed go'aan ku gaadheen inay siiyaan nin 20 ka weyn awoodeeda oo idil waxay suuqgeysay gabadha yareed sidii ay guurkaas ay ku qasbeen hooyadeed iyo aabaheed ugu hortagi lahayd way ooday way ka diiday balse dheg looma jalaqsiin oo cidna kumayna waafaqin waxay lahayd qoyskooda oo idil dhabarka ayay u jeediyeen iyadoo qiiroonaysa ayaa loo xiray geliyay nin aanay doonayn nin aanay garanayn nin aanay weligeed la hadlin ninka loo guuriyay 20 ka weyn markaa ninkan loo guuriyo waxa weeye nin cabtooya oo khamri loo ah habeenkii wuxuu guriga iman jiray isagoo khamri ka dahaya isagoo khamri ka soo kankamaya iyadoo ayra dhalayta sariirta hurda ayuu hurdada ka toosin jiray oo ka salilin jiray kala jiifsan jiray kolkuu ka dandhamaysto inanta ayuu sariirta dhankiisa kaga seexan jiray oo ku u dhabar jeedin jiray meesuu dantiisa eegan jiray dantiisa buueedan jiray mid axmaqaab waa dareemay caqiib inantii waxay dareentay cadaadis kaga yimid nafsi ahaan qabtay welwel guud ahaan intii xiriirkaas jirayba dhanka sariirta ay ku liidatay inantii hoos ku dhacbay ku timi nacayb bay ninkii kala kulantay ninkii hooyadeed siisay iyo aabaheed siiyay kaga raali ahaayeen go'aan waxay ku gaadhay in hooyada u dacwooto keliyaatiina hooyada u sheegto ninkan inay nacayb tahay ninkan inaanay hooyadeedna waxay ugu jawaabtay jacaylkaaga iyo nacaybkaaga ku hayso laabtaada laakiin jirkaaga isaga iska leh jacaylkaaga iyo nacaybkaagana laabtaada ku hayso muddo markii inantii sidaa ay ku nooleed habeen walba si sharciyeysan ayuu u kufsan jiray 4 wiil ayay u dhashay kadeed rafaad cadaadis ayay ku dhashay 4 wiil waxa ku gaadhay go'aan in jir ahaan ka fogaato sariirta ayaana ku cidleeyay 12 go ayaa ka soo wareertay talaabada aan ku dhaqaaqay aragtidiisa iyo maqalkiisa jabaqdiisa ayay diiqadiga qaban jirtay kolkii aan arko ee isha aan gacan ku siiyana wadnaha ayaa gariiri jiray guuxiisa gurigana 4 go ka hor ayay hadalkii ka goosatay gurigana waxay ku yeelatay qolalka kamid ah welina muuna furin in badanna wuxuu sheegay in badanna wuxuu ku yiri waxaan ku furayaa kolka aniga iyo nin kaleba toona aadan waxba tarin ee aad duqowdo kolkaas baan ku furayaa balse maalmaha waanu dhaadanaa isaga iyo cid kalena toona maanta ima hunguriyanayaan 15 sano kadeed iyo cadaadis aan ku soo kor qaatay dib waxa aan noqday gabadh haryar daamada khayrkeeda iyo nacaybkeeda uu qabta wiilasheedii way barbaareen oo dhalinyaro barbaar ah ayay noqdeen aniguna dhaheygii uu tegay dhulyaal ayaan noqday maanta la joogo kadeedkii ayaa daba dheeraaday in aan ka nasta ayaan doonaya qaab kasta oo aan ninka aan isaga furdaamin karo diyaar ayaan u ahay haddaba daawade qisada intaasay kusoo gabagabowday horta qisada halkaas aan kusoo gabagabay sida tahayna wanu soo gudbiyay qisadaasna meel allaale meel ka dhacday garmay gabadhu may sheegin laakiin meel allaale meel ay ku qabsatay nasiibadaasu may soo qorin gabadhaasu way soo gudbisuun qisada sida u dhacday nawaniya aan isoo habeeya aan isoo dhiga halkan haddaba tusaalaha
iyo talooyinka aan ka qaadan karnaa waxa weeye horta ugu horreyn waalidku inaanun ubadkiisa aanun niyad xumo iyo rafaad kadeed inuu horseedo ma ubadka yadaa xorriyadda leh nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waalidka xaq waxay u leeyihiin inay ubadkooda u dooraan magaca wacan xadiistu sidaas waa baan filaya haddaanan khaldin magaca wacan iyo ay guursanayo ay u dooraan say wacan haddaynan tahay inay nin wacan ay ku daraan hadday inan yahayna inay ku daraan inan wacan oo akhlaaq wacan haddaba si kastaba ha ahaatee xadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska nebiga ayaaba tusaaleyn ugu filan marka waxaa habboon markasta qisadan waxay ku socotaa waalidkay ku socotaa inay dhallinyaradooda aanay ninna sanka kaga tulin inay qasab ku siiyaan gaar ahaan dumarka ay qasab ku siiyaan inanta oday weyn ama wiil yaroo dhallinyaraa muuqaalkan intaasaan kusoo gabagabeynayaa ta waxaad ka faa'iiday kommentidan ugu reebaysaa haddaad ku cusubtaa subscribe ba saaraysaa haddaad hore noola joogtayna like baad ku cadaajinaysaa ilamaayo tirada leedka qortid jalankana jalan cusub dad badan la gaadhsiiya muuqaalada suu jalanku u koro jalanka inikaale dhacdooyinka iyo qisooyinka ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.